بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوداشي قيمة يقايا له ميلو بديقة داوانيسان هالكا كان يوتيوب جانل كآمنة معلن وحيدين رجينا يا إناد نبض عافماد بشبش برواقع براراتهين ميلو بديقة داوانيسان وكما سنتين سيدا وعنا أدي إلى سعوتان مقالة يوتيوب كسول كسر أتاك سبسكرايب لوداك أصحاب تادا furagan balaalka si barnaamijyada soo socda ay ku soo gaaraan hadii ilaahay raahdo waa muuqaal kaleeto oo cusub iyo aamina macalin soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo wax aan hore u caadeysanin oo aan hore uga hadlin hor ahaantii hadafkaygu ma ahayn inaan ka soo hadlo dadyowga social media ku jiro hadallo ama barnaamijyo ay sameeyeen inaan dib uga soo falceliyo laakiin satani waxay noqotay lama huraan waa cooska jiidaal in laga hadlo waa muhiim ayaan u arkay aamin ahaan waxaan jeclahay laba wiil oo walaalaheeya oo social media ugu tunkaweyn inaan ka soo hadlo arin ay xalay sameeyeen waa Cabdiqaadir Booska iyo Shiina Culay run ahaantii waa laba wiil oo Soomaaliyeed waa laba nin oo culculus oo bulshada magac iyo meeqaam intaba ku dhaxle ayna ku xiran yihiin dadyow aad u fara badan ana kamid ahay daawadayaasha la socda janaaladooda daawadana isla mar ahaanta waxyaabaha ay soo gudbiyaan ma jecli in aan aflagaadeeyo ama wax xumaana aan ka sheego subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa xumaan oo idil ka nastahan wiilashaas walaalaheeyana wax dhibaato ah ama wax ceeb ah oo aan ka sheegayo ama ay leeyihiin haba yaraatee oo anigu arkay ma jirto hase yeeshee waxaan rabaa si guud inaan ula hadlo dadka isticmaala aalada TikTok-ga maalmihii ugu dambeeyay aadamoodeesid inay u isticmaalayeen qaabab kala duwan oo qaldan kadib barnaamijkii xalay ee ciyaarta ay ku balansanayeen iyagoo madal ka soo kala dhigtay labada mas'uul ee dalka ugu sareeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo in ay soo kala saarteen sawiradooda iyagoo markaas sheegaya in ay labadooda u kala tartamayaan run ahaantii dhalinyarada horta waxaan leeyahay in la ciyaaro waa wax fiican sababtoo ciyaaruhu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha entertainmentiga ama madadaalada ah ee bulshada ku madadaalato hase yeeshee waxaa jira qaabab kaleeto oo ka qurux badan oo ka wanaagsan oo idinku munaasabsan inaad u ciyaartaan maadaama dad dhalinyaro aad tihiin waqtigiina idinkoo qaadanaya haddana inaad ilaalisaan dhalinyaronimada iyo bulshada dhexdeeda maxaa yeelay dalka kan 20 sano ayuu wuxuu ku soo jiray dhibaato iyo colaado aad u fara badan oo dib u dhac ku keena wadanka xilliga kani waxaynu joognaa xilli aynu isleenahay dhalinyaradu waxay gaareen xilligii ay fahmi lahaayeen halka dhibku ay ka jirto qaabka looga bixi lahaa xilligii kani waxaynu ku jirnaa xilli ay dhalinyaradu aad u isticmaalayaan aalada social media qaasadan TikTok haba loogu badnaadee xilliga kani waa xilli ay dhalinyaradu ku mashquulsan yihiin maxaa cusub maxaa maanta la soo dhigay maadaama walaalahay aad tihiin dad haysta bulsho badan oo idinku xiran koontooyinkiina daawado waxaa qurux badan oo wanaagsan in aad soo gudbisaan waxyaabo ay dhalinyaradu idinkaga dayanadaan waxyaabo ay dhalinyaradu idinkaga daya karaan waxyaabo ay dhalinyaradu idinka faa'iidi karaan run ahaantii maanta dalkeenu ma u baahno kala safasho laba shaqsi amaba laba koox amaba laba group uma baahna dalka kani maanta wuxuu u baahan yahay maskax iyo aqoon in lagu hormariyo dalka kani maxaa yeelay in ka badan 20 sano ayuu wadankani wuxuu ku soo jiray dib u dhac waxbarasho la'aan burbur colaado iyo waxyaabo kaleeto adinkoo maanta dalkii ka maqan haddana in aad qaababkaas u soo ciyaartaan maxay dhalinyaradu idinkaga dayan karaan waxaan idinka raali gelinayaa ugu horreynba haddii codkayga aad ka dareentaan wax dhibaato inuu idinku yahay taasi raali gelin iyo cimaamad ayaan idinkaga saaray madaxa sare laakiinse waxaan ifinayaa inaad tihiin laba nin oo ku daysho mudan oo bulshadu ay aad u jeceshahay anigana aan ka mid ahay bulshada idin jecel oo idin daawato laba nin oo muxtaram ah oo aqyaaro ah oo dhalinyaro ah maadaama madaxdii sarsare ee wadanka aad u kala safanaysaan taasi maxay micneyn kartaa dib isugu laabta idinka laftirkiina ciyaartiina dib u daawada hadaladiina dib u qiimeeya waxaa idinka codsanayaa walaalahay qiimaha iyo qaayaha leh adinkoo hadalkayga xumaan u arkina kaliya labadiina maahan
qof kasta oo isticmaalaya aalada social media qaasatan tiktoka live soo galaya waxyaabo kaleeto yacni ku hadlaya maantay wadankeena wuxuu u baahan yahay samata bixin. Allah subxaanahu wa tacaala ayaana samata bixin kara. wadanka maanta wuxuu u baahan yahay in maskaxda la dhalaaliyo, in madaxa laga fakaro, in dhalinyarada maantay la xusuusiyo taariikhda Soomaaliya ay ahaan jirtay. waxaa ka wanaagsaneed inaad ku tartantaan taariikhdii hore iyo dhaqankii Soomaaliya in aad soo qaadataan, inaad nagu ballamisaan kulamadaas kulamo ka qurqurux badan oo ka wanaagsan adinkoona baraya sooyaalkeenii hore ee soo jireenka ahaa, si dhalinyarada maanta dhaqanka aan garanaynin ay idinkaga faa'iidaan. taasina waa iga codsi. sidoo kale dhalinyarada ku sugan gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya ayagana ee social media isticmaala, waxaan leeyahay walaalayaalo, Allah subxaanahu wa tacaala uga baqa waxa aad sameynaysaan. maxaa yeelay waxa kan waa adduun, waa laga tegayaa, qof kastana waa uu dhimanayaa. maxaa bari Allah subxaanahu wa tacaala la hortegaysaa? maxaa bari bulshadaada la hor imaanaysaa? maxaa bari markaad waayeel noqotay codkan iyo videogan oo rekoorka noqonaya ee ku sii jiraya ee ilmahaad awoowaha u tahay sii daawan doono, maxaad uga sheekeen doontaa inaad ahayd wiil wanaagsan, inaad ahayd nin wanaagsan, nin muxtaram ah, nin bulshadii sharaf iyo qiimo iyo qaaya ku dhaxlay? maxayse bulshadu ka dhaxlaysaa? waxa kan waa wax rikoor ah, waa wax duuban, waa wax meel yaalo oo aan inaba baxaynin. sidaasi daraadeed gabdhaha iyaguna isticmaala aalada tiktoka waxaan leeyahay ilaahay uga baqa jirkiina, cawradiina asturta. Allah subxaanahu wa tacaala jirkaas quruxda badan la idin siiyey ee banaanka aad soo dhigaysaan maalinta yawmul qiyaamaha ma ahaanayo sheekada sida tan ee hadda ay tahay. 2 mitir ayaa qof walba sugayso. maadaama waxa kan ay yihiin waxa gaal soo sameeyay, ha u maleenin in loo soo sameeyay ciyaar wax loo soo fakaray in dhaqankaaga iyo diintaada intaba lagu fasahaadiyo. adigoo social media isticmaalaya, adigoo social media bulshada uga sheekeyn kara, adigoo social media bulshada wax kasta oo qiimo la uga gudbin kara, ha uga gudbinin wax qaabdara iyo wax qalqaloocan iyo wax dhaqanka iyo diinta intaba wax u dhimayo. sidaasi daraadeed aanu dib isugu laabano. walaalahaygana waxaan leeyahay haddii hadalkayga aad qadaf u aragteen, cimaamadiina marka hore ayaan idin diyaariyey, waana raaligelin. laakiinse waxaan jeclaystay anigoo ah maamo Aamina Macalin Cabdulaahi inaan idin dhaho, maadaama aad tihiin dadka social mediaha ugu caansan, ha u isticmaalina wax dalka kan dib u sii celinaya, wax dadka maangaabka ah iyo dhalinyarada aan wax fahansaneen ee qaab qaldan wax u fahmayaan. haddii ay noqotay inaa ciyaareysaan, u ciyaara siyaabo sooyaal iyo dhaqan iyo soo jireen laga faa'iidayo. soo xirta go-i iyo shaalkii quruxda badnaa, cimaamadii iyo fandhaalkiina soo qaata. taas ayaa ka qurux badan inaad u tartantaan, in aad 2 saf amaba 2 group ah kala gashaan, in maanta bulshada tan ee walwalka iyo walaahooga ku sugan inaad adinkoo iska ciyaaraya waxyaabo kaleeto ay idinka dhex arkaan, waa laga qurux badan yahay. dhalinyarada adinkana waxaa idin leeyahay uga faa'iideysta waqtigiina, wax bari ilmihiina ay uga faa'iideysan karaan. ha uga faa'iideysanin waqtigaaga wax hadhow shalay kuu keenaya, wax hadhow sharaftaada dib u ridaya, wax hadhow aadan tirtiri karin oodan ka tegi karin, yeesan kugu noqonin wax ku taabta. waxaa idin leeyahay walaalahayga soo dhawaada qaasatan gruupka ku xiran janalkayga. waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad ula socotaan maxaa tiraa muuqaaladeyda iyo waliba fiidiyoyaasha. asxaabta nagu cusubna waxaa leeyahay soo dhawaada. intaynu muuqaal midkan lamida ku kulmi doono waa walaashiin Aamina Macalin Cabdulaahi oo idin leh waqtigu ha idin wacnaado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.